وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود عليه رحمة الله وعير الشيخ وقل وحاتر هذا سنيهو غير مخلوق مد مخلوق غير كيويان كلام مليكنا بقر كنجا هذا الكي دانا وحي راعين وحي عقيديين أما كدين ديكتين الأتقياء كور دورسا بذلك هذا الكا وأفصحوا وين عديين ولا تكوى هان قائلا مدكو قول أكو هذا بالوقف جوكسي في القرآن قرآنك كما سيدا قال أي راهدين أتباع تاغي ريال واللي جهم أسقناذي وأسجحوا وينفضوا ديين قولك جهمي ولا تقول هدهن القرآن قرآنك خلق هو قرآنك خلق أي مخلوق ومثل أمي قراءة حق أخرس أهان فإن كلام الله محايل هذا الكإلهي يوضح وحلقوا عدية باللفظ دوقا انت أن معناها دور جربا كعلين دونا هدي الله يراد لكن وحان مركو هور مرينينا صدح ذان بيت waxa ay ka hadlayaan macnaha guud markii aan fahanno ayaan ka bacdi alfaada ku laaban doonaa macnayntooda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay tilmaamo iyo magacyo ugu horeyn allah subxaanahu wa tacaala cid naftiisa uga aqoon badani ma jirto khalqiga iyo basharka markii loo yimaadana rususha ilaahay cid allah uga aqoon badani ma jirto haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala oo naftiisa axad walba uga aqoon badan magacyana waa isku magacaabay tilmaamana waa isku tilmaamay lahu alasmaa'u alxusna وله المثل الأعلى صفة تلمانتا ugu sareynta badanna ilaahay baa leh magacyada kuwa ugu wanaaga badanna ilaahay subxaanahu wa tacaala baa qofka marka muslimka ah ee allah iyo rasuul rumaysan waxa la gudboon waxay tahay oo kali ah ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama qofku uunan arag wax looga qiyaas qaato oo ilaahay lamidana aynan jirin waxa ilaahay uu isku tilmaamay in qofku uu ku tilmaamo magaca ilaahay uu isku magacaabana lagu magacaabo warkaas war cad baya طيب لأن إلهي سبحانه وتعالى سيدو القرآن كان نوغو شيغي مثل iyo wax looga qiyaas qaata male oo haddii aan sii jilcinno haddii aad maalan lagu sheego qof aadan aqoon baa hebel baa la yidhaha meeshaasuu joogaa waxbaad sawirataa oo waxbaad suuraysanaysaa nuucaa inuu yahay ama waad raadisaa waad leedahay hebel da'dii waa imisa markaasaa lagu leeyahay hebel ma taqaanaa haa waa hebel oo kale waa waxaad garanayso ama maskaxaan baad u sawiran kartaa ama waxaad taqaan oo aad suuradiisa taqaan baa loo ekaysiin karaa
وخلقك يا بشر كمركي لآد إلهي سبحانه وتعالى وحو البو أنقو أن صورة دي صنو وكسر يا إلهي سوى البوحة وحقوه ونكسر هداد قلبك كسورته إلهي سبحانه وتعالى وكسر ريا ونكد وينها وليبا وحلا سوران كرام ما أهل وحانوغا قياس قادرنا مبجران وليس كمثله شيء ويا طيب هذا بقى إلهي سبحانه وتعالى هدوم مقع اسكو مقع عاو وقرآن كن نوع عدي مقع إلهي وليه هي سيدا مثلا العليم السميع البصير القدير الغفور العلي العظيم ومقعي إلهي سبحانه وتعالى إلهي بقى اسكو مقع مقعان معهن مقع صمد كلية يعني معنى وذن بشرك يا بني آدمكو مقع يدودو لبا نوع ويان مقع معنى وطه يا مقعان معنى لهين انت بوي لبحان هذا الصومالي ده أنك مثلا صوماليها مقعيان لبحنا كوانا وحي كترجميان كلية قف كان مقعيسينو هبلي هاي كوانا معنى يحنبارسين مثلا جيدي فيدئي سو أسماء ده الصومالي ده لبحي جرتا معه مقعيان اسكب حي معهن لكن معنى وطان مقعنا ومقع اسكا مجرد هو wax macna aan wadan aabaha markuu مثلا ku bixiyay maxamed ama faarax markuu ku bixiyay macna gaar ah oo la beegsanayo ma jirin waa calam kaliya mujarrad ah magacyada ilaahay dhamaantood macnay leeyihiin macnay ku fadhiyaan markaas ahlul cilmigu waxay qoreen kutub ay uga hadlayaan magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala macnahooda iyo fiqhigooda iyo fahamkooda ayib tilmaamana ilaahay uu leeyahay tusaale ahaan ilaahay wuxuu isku magacaabay inuu yahay as-samiic min asmaa'ihi waxaa ka mida as-samiic tilmaamihiisana waxaa ka mida as-samcu maqal alla mid wax maqla weeyaan waa la fahmaan u marina intaa haddaba tilmaamaha iyo magacyada ilaahay isku magacaabay qofka muslimka waxaa la rabaa inuu ilaahay ku magacaabo kuna tilmaamo asagoo ka fogaanaya laba arrimood waa inuu qofku iska ilaaliyo koow waa inuu iska ilaaliyo magaca ilaahay inuu ka rumeeyo inuu magacyada dadka la mid yahay ama tilmaamaha ilaahay inay tilmaamaha khalqigiisa iyo basharkiisa la mid yihiin مثلا إلهي مقل بوليه هاي ضدكنا وحبي مقلان لما به كرمرك مقل كإلهي ومقل كضدك وكله لا وممنوع وتمثيل يو أكيسين لما أقرأ وكو واحد كلا يسكا إلى علينا يسا إنا تراهدو هدان إلهي مقل أسوغو waxay la mid noqon kartaa maqalka bani aadamka sida darteed ilaahay maqal ma leh ama dhihi maayo maqal uu leeyahay maqal ma leh midna malihi inaad tiraa ayaduna waa qalad maxaa laga rabaa marka inaad tiraado ilaahay maqal baan u sugaya u cuntama jalaaladiisa iyo weyninkiisa u cuntama maqalkaasi waa nuuca ilaahay nooma sheegin waan ka aamusaynaa waa la fahmaan u malaynaya waaya marka tilmaamo ilaahay tilmaamuu leeyahay tilmaamihiisa waxaa la rabaa sida alla isugu tilmaamay in loo sugo ayadoo laga fogaanaya in la diido iyo in loo ekaysiiyo tilmaamihii makhluuqiisa intaa waa garana soo maha haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamihiisa waxaa ka mid ah sifatu lkalaam ilaahay inuu yahay mid hadla hadalkiisana la maqlo ilaahay wuu hadlaa hadalkiisana addoommadiisu way maqlaan ayib hadalka ilaahay waxaa ka mida qur'aankaa ka mida xaraf ahaan iyo macno ahaan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankan ugu hadlay hadalka ilaahay buu ka mid yahay nusuusta qur'aanka iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam intuba waxay noo caddeeyeen
إلهي سبحانه وتعالى إنه كنت المامية هي صفة الكلام أما صفة هذا تصالح هذا سوق هذا أما دور مثال أنك سوق هذا النصوص إلهي أصغر نوت المامية قرآن كان إنه هذا الكيسية هي أي الله وحله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمعها كلام الله إله هذا الكإله وكمق له قرآن كويا الله إنه هذليه هي النصوص تسيسي وحكم ذا الله وحليه هي وكلم الله موسى تكليما إلهي وحو الله هذلي النبي موسى الله هذلت الله نوحو له وناديناه وحان وقد دواقني دواق موسى ومقلي إلهي بقى دواقي آيات دي كلنا واتي لهاد مركو وادي المقدس طوى ويميد وحان نريه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري هذا الكا نبي الله موسى عليه السلام الله وكل هذا هو مقلي قيامها إلهي سبحانه وتعالى خلائق دي سيئونك يسوي الله هذليا أهل الجنة إلهي سبحانه وتعالى والله هذليا نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي ليلة الإسراء همين كي للدلميي معراج كاللو سمية السماوات كاس لفوليي صلاة اللي قصوا واجبيني إلهي سبحانه وتعالى والله هذلي هذا الكيسنا مقلي ولا فهمان مليني هذا الكإلهي وتلمان الله سبحانه وتعالى سوى كتلمامية هاي حدي تلمان أي تهي إلهي وكتلمامية هذا الكعلة أو قرآنك وكمدي هاي هذا الكإلهي قرآنك كلية ما سو إلهي التوراة سو مدجن هذا الإلهي بوها سو إنجيل إلهي سو مدجن هذا الإلهي بوها زبور سؤال لما سو دجن هذا الإلهي بوها صحف إبراهيم وموسى سؤال لما سود الجن هذا الإلهي بوها نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي صلاة اللي جوا واجبين يا سؤال الله ما هذلين وحو مغلى هذا الكرب بيا هاي وهكذا قرآنكم مركا وتلمان أما الصفة معنى هذا الكإلهي قرآنكم وحو كمدي هاي كلامك اللوية هذا الكإلهي وتلمان إلهي أوليه وتلمان الله سبحانه وتعالى أوليه أنت ما قرنا نقطة الله بعد نوجد بينها مدان حتى waxay tahay dadkii muslimiinta ahaa ee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyay ee quraankan uu ku dul akhrinayay waxay isku raacsanaayeen quraanku hadal ilaahay inuu yahay kalaamullah inuu yahay sidaa bay u rumaysnaayeen kalaamullah inuu yahay inuusan makhluuq ahayn lianna كلامك أمام ما يعني هذا الكإلهي الله تلمانو يا سوما إلهينا وخالق مخلوق معه ما دعي كرتا إن إلهي تلماميه سيل إرادة ومخلوق ما سورتود أو صفاته ذات هذا إلهي بين رعسنتها تلمانتيس ذات هذا إلهي بين تلمانتيس الرعسنتها مسلمين تمرك وحي آمين سنايين قرآن كان هذا الإلهي إنه يهي تلمان الله أوليه يهي خلقي يا مخلوق نمنا وحبائنا نشقق لهين وادنبه أمويين توقتيgoodii ah reer banu umayya xilligay dadka xukumayeen ayaa muslimiintii balaaya ka soo dhex dilaacday yahuud baa soo dhex gashay shuruurtoodii iyo balaayooyinkoodii iyo dadka inay diinta ka fasahaadiyaan afkaar ayagu ay wateen bay dadkii ku soo dhex tuureen nin baa soo baxay la dhihi jiray جعد ابن درهم الجعد ابن درهم ننكاسي وحو انكراي تلمامه إلهي يا مقعيدي الله انت بوا انكراي قرآن كان محو يهي بالليل قرآن كان وحو يروا مخلوق جيلا يا أرقا يا لقضة يا ضدك يا حيوانك وحسو لمدي عر كان يدول كانوا كلويا سيدا أيها إلهي وأبوري أيها قرآن كان الله وأبوري هذا الإلهي مباله الله هذا الله يسكت لهننا ساسيران علماء المسلمين تواكوك عن فكر كيسي مفافن من باب كوض حيستي بقرد المسلمين تكملها أيام مال عيدة انتي من قصة وقصة مشهورة إن كستو سندها وحكو جيران لكن قصة عن بحذي وين خالد بن عبد الله القسري
nin la dhihi jiray oo madaxdii muslimiinta ka mid ahaa ayaa maalinkii ciidul adxaa dadkii u khudbeeyey markaasuu markuu khudbada dhammeeyo wuxuu yidhaahdo wardadow ilaahay udxiyadiinna ha idiin aqbale udxiyaysta anigu maanta jacd ibnu dirham ninka la yidhaha baan ku udxiyaysanaya oo markaa muxuu qabaa buu leeyahay wuxuu yidhaahda ilaahay ibraahim khaliil kama yeelan muusena lama hadal buu yidhi buu yidhi waa gaalnimo weyn waa arrin kufriya ninka marka fikirkiisii dad badanu kama qaadin xilliga ma faafin fikraddiisii ma faafin laakiin arda buu lahaa waxaan uu ka dhaadhiciyey oo aad u cabay fikirkan isqarinayana ilaan culummo badan baa joogta nimanka madaxda ah ee diinta ilaahay difaacayaa jooga marka asagu fikirkiisii ma uusan muujisan ardagu jacadna meeshaabaaba lagu dila khalaas fikirkii waa iska baaba'ay laakiin ninkii fikraddan xambaaray asalka fikraddanna jacad nin yahuudiya buu ka keenay ninkii nebiga sixray ayaa laga keenay fikraddan qur-aanku waa makhluuq ah halkaasay ka timid oo sanad ahaan halkaabay gashaa waagii dambe xoogaa ay muslimiintii dacfi uu galay oo culummadii waaweyneed oo laga baqayo diinta looga haybaysanaya ay dhinteen ayaa ninkani soo baxay la yidhaahdo jahm ibnu safwaan assamarqandi atbaacu jahmin meeshuuna leeyahay weeyaan jahmi ibnu safwaan assamarqandi ninkaasaa marka wuxuu fursad u helay inuu aad u faafiyo fikraddiisii ma ila socotaan fikraddiisii inuu aad u faafiyo ayuu fursad u helay wuxuu soo istaagay qur'aankan la akhrinaayo kalaamullaahi waa yahay laakiin kalaamka ilaahayba waa makhluuq oo kalaamullaahi marka la leeyahay idaafadan iyo tiirintani waa sharfid ee tilmaan alla uu leeyahay lagu tilmaamaya ma ahan madax badan baa la qaadatay madaxdii muslimiinta qaybo ka mid ah la qaatay culummadii muslimiinta aad u qiimaha badnaa fikraddaas aad bay uga soo horjeesteen manaabirta waxay la istaageen lana qayliyeen qur'aanku waa hadal ilaahay waa hadalka ilaahayna waa tilmaan alla uu ku tilmaaman yahay makhluuq weeyaan lama dhihi karo alqur'aanu kalaamullaah hayru makhluuqin taasay la jahreen ay la qayliyeen waxaa jiray imaam la dhihi jira isfaraayiini oo culummada shaaficiyada ka mid a maalinka jumcaha dadku ugu badan yihiin inta mimbarka fuulo ayaa wuxuu dhihi jiray alqur'aanu kalaamullaah qur'aanku waa hadal ilaahay hayru makhluuqna ma aha saasuu dhihi jiray markaasuu dadka wuxuu dhihi jiray war intaa ha layga wariyo dadka ha loo sheego a'immo muslimiina madaxdu markii ay qaateen fikraddii jahmi ibnu safwaan madax badan baa qaadatay madaxdii fikraddaa qaadatay oo si fiican u cabtay waxay ciqaabeen oo ay dhibaateeyeen a'immadii muslimiinta kii mansib iyo xil dowladda ka hayay waxaa la leeyahay qur'aanku ma makhluuq amase makhluuq ma aha makhluuq ma ahan markuu yidhaahdo waa xabsiyaa la dhigaa xilkii waa laga qaadaa gunnadii la sii jira waa laga jaraa xabsi baa lagu ogaadaa qaarna waaba la dilaaba raggii dhibka badan loo soo mariyo waxaa ka mid ahaa alimaam axmed ibnu muxamed ibnu xambal ashaybaani axmed ibnu xambal ashaybaani calayhi raxmat ullah dhib badan baa loo soo mariyey waa loo ciqaabay waa loo xabisay waa loo xiray ta la garaaco oo ninka jallaadka ahee karbaashaya garaacaya dilkiisa ku daalo ayaa la keenaya markaasaa la leeyahay haye maxaad leedahay markaasuu wuxuu leeyahay alqur'aanu kalaamullaah hayru makhluuq markaabaa xabsigii lagu celiyaa jallaadkii iyo kii dilaya u soo nasta markaabuu haddana dilaa oo garaaca waa la soo bixiyaa markaabuu leeyahay alqur'aanu kalaamullaahi hayru makhluuq ilaa imise madax nin baa sidaa ku waday intuu boqorka ahaa sidaa buu garaacayay mid kalea boqortooyadii qabtay intuu boqorka ahaa sidaa buu garaacayay kii saddexaad baa ilaahay subxaanahu wa tacaala faraj ku siiyey wakhti dambe oo sunnadiina ay guulaysatay halkan marka shiikha mas'aladu uga hadlaya waxa weeyaan mas'alada caqiidada ahlu sunnaha ay ka qabaan hadalka ilaahay ahlu sunnaha caqiidadoodu waxa weeyaan hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu hadlo hadalkiisana hadal la maqlo uu yahay qur'aankuna uu yahay hadal ilaahay oo hadalka ilaahay uu ka mid yahay qur'aanku
هذا الإلهي إنه يهي أنا لديه كريم ومخلوق مركا قلوينك أهل باطل كأها صدح قيبوت بين نقدين سيفي عندك تورارع صدح قيبوت بين نقدين قال بنان كي ورك ورعد بيكون واقعين وحي لهذين كلام كان إلهي ومخلوق كلام الله مخلوق ويا وقرآن كان ومخلوق أنا سيدا لي أبورا قرآن كان لا أبوري يعني سيدا أنا أن مخلوق أهي أبور إلهي وهي با قرآن كأبور إلهي وياهي الله أنا ما هذا الله بنان كي ورك وذا لي مالي قال كلا وحي إسكت لجين dad xoogay dhowr siyo warac ku jiro oo dhowr sanay markaasi waxay yiraahdeen qolada marka waxa la yiraahdaa sida tiri jahmiya la yiraahdaa ninkii jahmi ibn safwan hadda aan sheegaynay aa loogu abtiriyay asagay abtirisahan galan al jahmiya ayaa la yiraahdaa qolada kale waxay yiraahdeen anagu waan dhowr sanayna al quraanu kalaamullaahi baan leenahay makhluuq miya mise makhluuq ma ahan maya kaba hadli maynaba waa makhluuqna malihin makhluuq ma ahanna malihin قولنا واقفة لنا واقفة الواقفة مال دحي استاجن وأهل باطل لأن هذا كان فوشح جهمي الرجس أي كل واقعنا هذا الكإله ومخلوق أي راهدين ضد كاسدات فضودين مين هدي ردين وين ويفضودين صوما ما حيكون ردين كرنا إرادة قرآنكم مخلوق معه مركا أيقنا أتباع جهمي بالراعي إمام أحمد يا أيمدي كلاقار كميدنا وحي إرادين الواقفة شر من الجهمية قال هذا واقفة أيها بالجهمية كشر بضن لأن ضد باب مودة يضد أهل ورع ودور الصدق أهل التقوى ضد بأن تؤم ملايا لغاية الله إله رم بشيء استيرادا وضد دور الصدق يعرب كودي بإيرانيين ضد أنت استيرادا مركب أيمد وحي أرديان كوا كلسين أردين وقال هذا الله قال هذا كوباد محانري وجهمية عد أو وحي بنان كلا استاجي قرآنكم مخلوق ويا قال هذا اللباد واقفة ومحير هذا المخلوق ويا نملهن ومخلوق نملهن صلى الله عليه وسلم قال هذا الصدحات وقال فليال محير هذا لفظي بالقرآن مخلوق وحل اللفظية أي اللي هذا اللفظية أي اللي هذا ومحير هذا لفظي بالقرآن مخلوق أرجع اللفظي لما معنو حنبارة لفظي ملفوظ كوحن أخرنايو ومخلوق مركز محون قنايا قرآن كيا مخلوق السوما لفظي أي ملفوظي وحانقو أن كل واقعي ومخلوق مركز محون قنايا قرآن كيا مخلوق إني جهميه وركودو وعديه لفظي وحون قنكرا نوقا يشنقرتا أنيقا مقليسو ديقا ديقيسانيسا شنقرتا ييريسا ومخلوق كانوا وارون سوما بين ماهن عرب كان فروريهان شنقرت هذا ومخلوق صومه كسر وارون لكن متك انتهى كان سو استاغ لفظي بالقرآن مخلوق يراده جنبشها كجرت وإنه كلا عديا محا كوضا هدو يراده وحن أخرنا يا مخلوقة محو نقريا جهمي بو نقضي هدو يراده مايا دوقيقا مخلوقة شنقرت هيدا أنا قد دوقيقا حروف يعني أنا قد دواقة يا مخلوق هدو يرادو وركيس مركز وحنا قرية إننا نجهمي هاي لكن وحلا وركان كإذا بسن هدي كان البدع على وهليشينية وركان إذا بكيلا لليه كلاح صدح ذو أهل باطل هدو ورك كهري واي صدح ناس بالله ما أقرأ ومن عض يستوي القرآن مخلوقين يمكوا واقفة هي مخلوق ماهن يا مخلوق من دمله هي قرآن تري لفظية أو تري لفظي بالقرآن تري لأن هذا مثلا وحانري وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح ضوقات مغشين يا إسكاله هذا صوماتنا مغلبيت كنا أخريه يا أخريه أنا يا أخريه صومان لكن وحن أخريه ياله أبو بكر بن أبي داود مركب محل يرى القرآن كعلماء وحيده جرين الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري شنقرت يا دوق قفك أخري ولا كلا عد قرحون يهبل عد قرحون بقرآن كو أخري هذا لا عد كاس وقرآن كو أخري هو مخلوق لكن وحو أخري وكلام الله هذا الكلاه ويا قال فمن ملينايا
ayaga markay lafdi yiraahdeen laba macnana ay xambaarto waa in laga fogaadaa waxaas lama ogola mar haddii caqiidada laga hadlayo war cad oo aan waxba ku soo aroori karin baa la rabaa ishkaalba uusan soo gali karin marba haddii caqiida laga hadlayo warku waa inuu waadix yahay aadna u cad yahay war intaa ma garan sheekhu marka halkan laba nuqdo nooga hadlay mar wuxuu noo sheegay qofka sunniga in laga rabo ee caqiidadii ahlu sunnaha raacsan oo salafkii caqiidadooda qofka ku dayanaya in laga rabo inuu yiraahdo hadalka ilaahay makhluuq ma ahana waa tilmaan alla uu leeyahay waa midda koobaad tan labaadna wuxuu noo sheegay qolada quraanku waa makhluuq tiri iyo qolada waaqifada ah iyo qolada lafdiyada ah intaba in laga fogaado waa waadixan u malaynaya hadalkii sheekha marka waxaas waxaan u soo marnay in intaan la fahmo intaan in la fahmo marka haddaan ku celino waxaan u malaynaa si waadixa in loo fahmi doono wuxuu yidhi sheekhu waqul dheh yaa adiga lagula hadlayaa u fiirso cidda amarka uu siinayo waa anta waa haddaad rabto inaad dariiqii saxaabada iyo taabiciintii atbaacu taabiciintii waddadoodii inaad qaado dariiqu salaf inaad raacdo haddaad rabto waa haddaad rabto inaad sunni noqoto oo waddadii nebi moxamed calayhi salatu wasalaam mid ku toosan inaad noqoto haddaad rabto qul dheh buu ku yidhi hayru makhluuqin waa midaan makhluuq ahayn kalaamu maliikinaa boqorkanaga hadalkiisu waa midaan makhluuq ahayn marka kalaam markii la yidhaahdo hadal ilaahay oo dhan baa soo gelaya qur'aankii baa ka mida injiil baa ka mida zabuur baa ka mida suxuf ibraahim baa ka muuda hadalka ilahayna mid la koobi kara maahanba qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbi lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbi bidalika daana alatqiyaa daana waxay raaceen ama daana waxay ka diin dhigteen ama daana waxay caqiideeyeen alatqiyaa'u kuwa taqwada leh kuwa alla ka baqa bidalika kaa oo hadalka ilahay inuusan makhluuq ahayn ayay caqiideeyeen ayagiibaa aaminay ma iskala aamuseen maya waa afsaxu wayna caddeeyeen bannaankay soo dhigeen walaa taku ha ahaan qaa'ilan mid ku qowlo oo yidhaahda fi lqur'aani ay fii sha'ni alqur'aani qur'aanka sha'nigiisa bilwaqfi joogsi mid yidhaahda oo makhluuq weeye makhluuq ma ahan mid dhahaya ha noqon ee maxaad leedahay alqur'aanu kalaamullaahi hayru makhluuq saasaad leedahay waa haddaa la fahmaan u malaynaya warku markaa waa cadiya walaa taku ahaanin qaa'ilan mid yidhaahda fi lqur'aani qur'aanka mid ka yidhaahda bilwaqfi ka istaagid makhluuq weeyaan iyo makhluuq ma ahan midna melihi mid dhaha ha isku noqon yaa sidaa qaba kamaa qaala sida ay yidhaahdeenba atbaacun taageerayaal oo lijahmin jahmi u sugnaaday qofka sidaa yidhaahda jahmi buu taageera u yahay asaga qur'aanka makhluuq buu yidhi qofka yidhahda waan ka istaagan asagii buu taageeray wa asjaxuu wayna jilciyeen ama way fududeeyeen qowlkii jahmi ninka sidaan qaba kamaa qaala atbaacun lijahmin wa asjaxuu muxuu ka wadaa qofkani markii hadalkan foosha xun ee jahmiya raggiisu ay ku dhawaaqeen ah qur'aanku waa makhluuq haddaad ka aamusto soo fududayn ma aha markaasuu leeyahay kuwaasi atbaacda jahmi qaar ka mid aha waxay yidhahdeen waan ka istaagnay kuwaanna way sahleenoo way fududeeyeen jahmi hadalkiisii bay fududeeyeen waa cadi ahaan u malaynaya beydkan waayaha qoladii kalea soo harta soomaha lafdiyada ahayd walaa taqul ha dhihin alqur'aanu qur'aanku khalqun huwa qur'aanku khalqun ay makhluuqun mid la abuuray weeye qiraa'atan akhris ahaan oo lafdii bilqur'aani makhluuqun ha dhihin fa inna kalaamallaahi maxaa yeela hadalka ilaahay yuudaxu waa la caddeeyaa bilafdi dhawaqaa lagu caddeeya oo waxaa la yidhaah alqur'aanu kalaamullaahi hayru makhluuqin sidaasaa loogu caddeeya laakiin adigu lafdii bilqur'aani makhluuqun iyo waxyaabo aan cadcaddayn ha ka daba wareegina war cad baa lagaa rabaa warka waadixa marba haddii caqiidada laga hadlayo halkaa marka waxaa noo soo baxday madaahibta ahlubaatilku inay saddex yihiin qolo tiri qur'aanku waa makhluuq qolo tawaquf samaysay oo ka istaagto oo tiri makhluuq ma ahan iyo waa makhluuq midna melihin qolo tiri allafdu bilqur'aani makhluuqun lafdigiiyo dhawaqa qur'aanku waa makhluuq tiri ayaguna waxay u xeeladaysteen hadalkii jahmi bay u socdaan ay u xeeladaysanayaan saddexdoo qoloba waa baatil maxaa la rabaa marka caqiidada ahlu sunnuhu maxay tahay
إن لا يراد القرآن كلام الله غير مخلوق إن سيدا لا يراد أنت وأنت درسك أن كفها بالعين وحجر قلوين كله وكفر عمي جهمية قل جهمية كفر عنتي مركي ضدك عامدا للجوجان القرآن كلام الله بيليه لكن غير مخلوق حتى أفقدكم بضنا غير مخلوق أفقدكم بضنا مركي اللي هذا القرآن كان أخرين إن هذا الكلاه مية مصحف كان قرآن كهذا الكالله وكهذا لمية هي تلمان إلهي وحقول له ما هذا الكلاه معهن لأن هذا الإله وحلا مغلبة معهن حرف يعود مدنا مله لما مغلى هذا الكلاه هي وحن محيين لوح المحفوظ ككتاب كانوا كقرها جبريل بأوتك أسجى كسو جوري مركا جبريل بعبري جبريل أي عبري هذا الإله مكسف يسيا ها صفة الكلام بقول لي هي لكن كلامك إلهي ومد نفساني وسواس قلبك كاجا جرو كلا ونفساني ومعناه قلبك صوح كاجا ما صار دعان وحاديك قلبك كاجا صار دعايو كلا وين هذا الكإلهي وحلا مغلانا معهن وحلا حرف لنا معهن ساسير هذا وحرف لما معهن انت اسمحي كعرريا ما تقانين بلا يكون عضي مركي هوري تلمانت إلهي وضدي صحدا يهدو ما قادين ووضدي صحدا محي إله دو تلمان اسكو تلمامه إن هاد مركي هوربا آمنت تلمانت إلهي وحكو لم يدئين سنجرين صوما أيهو مركي تلمانت كلام مركي صفة الكلام هذا مركي مسكح ذو ذبوكو صور دعي عرب إيا فرورية إيا مخارج الحروف أكو صور دعي مخارج الحروف أي أكو صور دعي مركزي وحي يرادن إلهي هدان نران وحد لا وحكا إيمانيسا عرب وليه قوسو ليه فروريو ليه وحان إلهي وكان زهين وحاس شقل كاي وحا يقدر صدا أيغا مر هذا الإلهي ألا سومده وان هد لا سو هد لأنه ما بشيقين مخلوق واحد جراء هد لي هدنا عرب إيا قوسو إيا فروريو مدنا اللهين هذا الكودان لمقلي حديث النبي عليه الصلاة والسلام محوها إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي وحان قرنا يا دغح مكة يعني هذاي وأنيق السلام يجري النبي عليه الصلاة والسلام والسلام يا سلامتي سيو مقلية سوى هذا ياك هذا الشيء أو عربية فروية يميلوا حليه هاي رب العالمين كهذا الشيء رب العالمين أياك هذا الشيء صوبه حبناها قفك إن يكون مرقاتي فريا بآخر الله الشيء ولي بنا قفك حبنيه سوى الله هذا ليه وليه هاي ما حد يقول مرقاتي فرتن أديك هذا الدفاع حيليه أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء شرط ما هم بعربية وحا إن يشان وحضي هذا ليان أيضا وقال دينا دامنت مركا تلمان إلهي ويسكت تلمامي ويان كلامكم أيوه مركا وحيليه القرآن كني وعبارة عن كلام الله قولنا واحد تروى حكاية هذا الكاس حوجي سيلي حكاية دي سيدة معناها حكاية وعداجن هذا الكلاه بمركا لقى داجن عبارة وحي إلهي نفساني جوا هاي حرف أنا هين وحلا مغلي أنا هين أيام ما ركتا العبري وجبريل بعبري مركا القرآن كان وهذا جبريل نفس مخلوق ما هين جبريل أنك إلهي وكمد يا سماء ملائكته خلق إلهي سكمد ما هذا الجبريل هدوية هاي محون نقرأ مركا القرآن كي حقوق الصعدة هذا الكود مخلوق بو الصعدة لكن ردود كبقينية إن لقى هذله إيه كعب صنايع وأنا من كلي الأشاعرة أبو الحسن الأشعري كو أبتر صنايع أيقو مركا حتى كتب تقار وحكوتها الله ذاتك عامة الحدودة يان لقده وحانا هين القرآن وكلام الله وحانا هين يان لقده لكن مخلوق وقرآن كحديث في عن الأرض رانديو وهذا الكي جبريل أما هذا الكي النبي محمد ويان حديث في عن الأرض رانديو مركا يقولون ما خلق إلهي كميدين وحي كهلا هو مخلوق هذا الكودن هو مخلوق وإلا إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيس ليس بحرف ولا صوت بين هذا عدنا ما هنحرفنا ما سؤال بالك يا روح الليل مركي إلهي سبحانه وتعالى موسى وكيري اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى كباها قبيح وادي طواها إلا ظهيرات جوكته وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى أنا قاعد دورتي واحد لقوه وحيون يا مقل إنني أنا الله أنا وحنا هاي الله بانا هاي معبود كحق أنا قويا سيدا يا يري هذا الكيا شيء ما جيت كي بهذا ما بورتي بالله هذا الشيء وأيدي بالا أنا إلهي
ماشي جواب لو ما هي مركا ها جواب لو ما هي هذا الإله يبو أها الله بانا وحدانيتي سي كلمتي سأشيغ يا نبي الله موسى عليه السلام وحيغنا ستوس وهذا الكإله مقلي أو وحلا مقلو ومسموعة وصوت له وحرف له أيوها كتبت عقيدتنا والله الله على كل اعتقاد أهل السنة وحيا سيد الشيخ هلك أو كعدي ويرادي وقل غير مخلوق كلام مليكنا اعتقاد كودنا واكا بذلك دان الأتقياء وافصعين تاين على القضيس مركا محاد كديران يسانا ترى هذا عبارة عن كلام الله أما هو حكاية هذا الكلاه لقى حكايوني أما ترى هذا مخلوق ماهن ومخلوق من مله أما بقى ترى هذا لفظي بالقرآن مخلوق انت صرنبا باطلك سفك وذقلي وضد صحدا هنا القرآن كلام الله غير مخلوق ويا هيا لقبها مين كوعلنا مسوى لا فهم يا هالمر بندول مرينا وقل وحاتر هذا السنيه غير مخلوق ومذا مخلوق أهين كلام مليكنا بقر كنجا هذا الكيس الله بذلك دان الأتقياء دان وحي كدين دكتين وأي راعين الأتقياء كوا دور سنة أهل التقوى يدك وناك سناء بذلك متك وأفصح وين عديين وضدكنا ويعديين ولا تكوى أهان قائلا مدي هذا في القرآن ككير هذا بالوقف كاستاجد أو مخلوق ماهن يوا غير مخلوق من مله وان كاستاج يكوى يراده هدهن كما قال السيد هذا الكابا يراهدين أتباع تاجريال لجهم أسقناضي وجاء أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي ضال مبتدع ورأس الجهمية وأسجحوا كواسي وأسجحوا ويفضوا ضيستين وقولك الجهمي بيستهلدين ولا تقول هدهن القرآن خلق هو يساق مخلوق مد مخلوق وين قراءة أقرس أهان محاي فإن كلام الله محاي لهذا الكإله يوضح ولا عضينا باللفظ دوق لقوا عضينا هل كابو نوتشوغا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك يا رب واجعل نهجنا نهج النبي وصحابه فبنهجهم فلنقتدي يا رب وفقنا بعلم نافع واهد العباد على لزوم المسجد ثم الصلاة على النبي وآله وجميع أصحاب الرسول محمد